dhinac walba ee magaalada Shire qaraxyo waaweyn ayaa lagu dhuftay. wararkii ugu dambeeyay ciidankii Itoobiya oo la go'doomiyay meel walba iyo deegaan walba iyo magaalo walba oo lagu hareereeyay waxaana lagu baaba'shay oo ay ku hoobteen magaalada Shire. wararkii ugu dambeeyay ayaad ku daawan doontaan barnaamijka saaxiibayaal. waqooyi bari quraxsin koonfur Itoobiya meel walba waa hulciisa. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan deegaanada ay hadda dagaalada ugu ba'ani ka socdaan. ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. fadlan like garay muuqaalka, subscribe saaro channelka, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya ee barnaamijyadeena. 15 maalmood ee dagaalka Itoobiya socday, maanta dagaalkii ugu ba'naa ayaa dhacay uguna xooganaa 15 maalmood. ciidankii dawladda federaalka Itoobiya dhinac walba ayaa laga hareereeyay. baabuurtii dagaalka waa laga gubay, ciidankoodii waa hareereysan yahay, meel walba iyo deegaan walba ayaa hadda lagu hareereeyay. waa qidadii ama qorshihii ugu cusla ayaa loo degay dawladda federaalka Itoobiya, ayaduna kama fiirsan ayaa la leeyahay go'aankii ahaa in ay ku qulqusho deegaanada ay baneeyeen ciidanka TPLF-ku. waxa ay u baneeyeen deegaano iyo magaalooyin waaweyn si ay u soo galaan ciidanka federaalku, si loogu hareereeyo halkaasi looguna baaba'sho laguna kala dhantaalo ciidanka federaalka ee awoodda badan isbidayay. hadda xaalku sidii ay rabeen ayuu ku socdaa maamulka TPLF-ku. hadda waxaa dagaalkii ugu qaraaraa ka socda magaalada Shire. Shire waxa ay u dhowdahay magaalada Aksum. Aksum iyo Shire waxa ay isku jiraan 48 kilomitir. Makale iyo Shirena waxa ay isku jiraan 272 kilomitir. taas micnaheedu waxa ay ka dhigan tahay ciidanka Shire soo galay ee dawladda federaalku waxa ay doonayeen in ay toos u aadaan magaalada Aksum oo 48 kilomitir u jirta, laakiin hadda waa ay hareereysan yihiin. dagaalkii ugu ba'naana ayaa ka socda gudaha magaalada Shire. baabuurtii gurmadka ahaydna waa laga gubay dawladda federaalka Itoobiya. hadda magaalada gudaheeda ayaa la isku jiraa. makale horta muuqaalkeeda guud waa kana. magaaladu sidan ayay mataqaana u dhisan tahay. marka la fiirsho magaalada marka geesaheeda waa magaalo ay ku hareereysan yihiin buuro waaweyn ayaa ku hareereysan magaalada sida aad muuqaalkaba uga jeedaan. dhinac walba ee magaaladan buuro ayaa ka xiga. cidda gudaha ku jirta marka waa federaalkii waaye, dhinac walbana waa laga hareereeyay. markii lagu hubsaday oo lagu ogaaday gudaha magaalada ayaa 4 jihaba laga soo weeraray. qaraxyo waaweyn ayaa lagu dhuftay meel walba ee magaalada laga soo galo. ciidankii Tigreegu gudaha ayay u soo galeen magaalada. dagaal xoogan ayaa ka socda gudaha magaalada Shire. xaaladdu waa ku cakiran tahay ciidanka federaalka Itoobiya. dhinac walba sida muuqaalka in kaga muuqata magaalada buuro waaweyn ayaa ka xiga. gudaha ayaa la isku jiraa waana hareereysan yihiin ciidanka federaalku. deegaano fara badan ayaa lagu hareereeyay. deegaano waaweyn oo ay mar hore soo dhaafeen ciidanka Itoobiya ayaa hadda ciidanka Tigreegu soo galeen. xuduudda Amxaarada iyo Tigreega dagaalkii ugu ba'naa marka laga soo tago Shire ayaa ka socda. xaaladdu waa ku cakiran tahay Amxaaradii iyo federaalkii isgarabsanayay. sidoo kale qabiil lagu magacaabo Kunso ee daga koonfur galbeed ee Itoobiya ayaa 6 qowmiyadood la diriray. xoolaha xataa waa dilayaan. qowmiyadihii kale ee la degay oo dhan waa ay la dirireen. dagaalo ba'an ayaa halkaas ka socda. qabiilkan yar waxa la leeyahay dad iyo dunyaba caafimayo. dagaal xoogan ayay ku jiraan. jaaniska ama fursadda hadda taagan ayuu doonayaa qabiil walba iyo qowmiyad walbaba inay ka faa'iideystaan. dawladdii federaalka qowmiyadihii ayaa la diriraya. ururadii wadankaasi ka dhisnaa ee faraha badnaa ee xornimadoonka ahaa ayaa la diriraya. waxaa dagaalamaya qowmiyadaha dhexdooda. waxaa dagaalamaya maamuladii iyo federaalka. xaalka Itoobiya ma qumana, waa dad kala diima ah. si la isugu keenana aad ayay u adkaa doontaa ayaa la leeyahay. barnaamijka xiga ayaa inoo ballan ah saaxiibayaal.